Salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kusoo dhawow Soccerseed Academy. Cashirkan wuxuu ku saabsan yahay sida loo sameysan lahayo form adigoo isticmaalayo Excelka. Formku wuxuu kaa caawinayaa inaad u isticmaasho Excelka si fudud, weliba marka aad sameynayso data entry ama xog aad gelinaysid. Haddaba sideen ku sameyn karayaa marka form? Marka ugu horeysa waxaan soo kacsanayaa Excelkayga. Excelkaada markuu sidaan usoo kaco, marka ugu horeyso waxaad ku qasbantahay horta xogtaada inaad diyaarsato. Aniga waxaan diyaarsanayaa xogtayda, halkaas ayaan ku dhufanayaa, kadibna waxaan ku qoranayaa halkaasi Soccerseed Academy. Kadibna waxaan sameynayaa farta ayaan weyneysanayaa, ka bedelanayaa farta, kadibna waxaan ku shubanayaa midabka. Halkaan ayaan imaanayaa, waxaan ku qorayaa now oo number laga soo gaabiyo. Tab ayaan leeyahay, soo godka kale ii geeyo, kadibna waxaan ku qorayaa halkaasi full name ardayga dhammaystiran magaciisa. Ama shaygaad rabto ayaad ka dhigan kartaa. Subject waa maadada, date waa taariikhda, time waa waqtiga. Halkaan waxaan gashanayaa marka buugga ardayga uu marayo. Halkaan waxaan gelinayaa month bisha ardayga markaas uu bixinayo iyo cash oo lacagtii ah. Waxaan sameysanayaa marka godkaani full name-ka ayaa waxaan qabanayaa, halkaas ayaan u jiidayaa soo meeshaasi magaca igu deeqo. Waxaan sameysanayaa halkaan ayaan select gareynayaa. Markaan select gareeyo kadib waxaan isla taabanayaa Ctrl+T markaan taabto wuxuu ii soo saarayaa create table abuuro. Okay, intaadan dhigin waxaad ku dhufanaysaa my table has headers. Tablekii waa inuu leeyahay marka headers jeega saar kadibna okay dhe. Tableka wuxuu kuu sameynayaa marka header iyo filter. Calaamadaha yar waxaa la yiraahdaa filter ayaa la yiraahdaa filter. Markaas sida aan sameysto, marka waxaan u baahanahay inaan soo sameysto tablekan. Halkaan waxaa igu jiro tab form la yiraahdo. Qaabkaas sidee marka form halkaa kusoo gelinayaa? Waxaan kusoo gelinaysaa, waxaad tagaysaa file tabka. Markaad tagto waxaad ka dooranaysaa option markaad ka doorato kadib waxaad ka dooranaysaa customize ribbon. Markaad ka doorato waxaad imaanaysaa halkaani ay ku qoran tahay popular commands. Kadib waxaad kasii dooranaysaa commands not in the ribbon. Comments not in the ribbon markaad ka doorato halkaan ayaad kili ku siinaysaa, kadibna waxaad raadinaysaa form oo adigoo xarafka F isticmaalaya. Form hadda uma soo bedeli kartid, meeshan ma keeni kartid, ay ku qoran tahay main tabska. Waxaan ku qasbanaa horta new tab inaan u sameeyo. Waxaan ku dhufanayaa new tab, kadib halkaas waxaa iga soo baxay marka tab. Waxaan leeyahay marka keega hore aan iska deleedaa horta, click ayaan ku siinayaa, kadibna waxaan leeyahay reset ayaan leeyahay. Asaga dhan marka reset ayaan ku sameynayaa soo midka hore uu iga saaro. Markuu sidaa ii sameeyo ayaa waxaan imaanayaa halkaani oo waxaan leeyahay marka new tab markaan ka doorto halkaan ayaa waxaan ku leeyahay marka click, kadibna rename ayaan ka dooranayaa, kadibna waxaan ku qorayaa form. Waxaan leeyahay marka enter. Waxaan imaanayaa marka new group customize ka right keeda ku leh sidaas la mid asigana waxaad ku qoraysaa form. Markaan ku qoro halkaan ayaan imaanayaa, waxaan soo baxsanayaa marka formkeygii oo kan ah, kadibna waxaan ku dhufanayaa add oo halkaa ah. Ku dhufanaysaa add oo halkaa ah, kadib wuxuu ku soo galay marka halkaasi formka. Waxaan leeyahay marka okay. Waxaad aragtaa marka halkaan hadda waxay ii soo koray form. Marka adigoo halkaan joogo haddaad ku dhufato form waxaad aragtaa inuu caadi kugu soo kacayo, ama waxaad sameysan kartaa halkaan inaad select gareysato form aad ka doorato. Form markaan ka doorto marka halkaas ayaan saaranayaa oo waxaan ku dhufanayaa number 1 tab ayaad leedahay. Wuxuu ii geenayaa godka ku xiga oo magaca loogu talagalay oo waxaan leeyahay markaasi ardayga magaciisa ama qofka magaciisa aad ku qoraysaa Maxamed Abdulqaadir. Tab ayaan leeyahay. Subject-ga maadadiisa waa computer. Time date-ka waxaan rabaa date-ka cashirka hadda aan duubayo, waqtiga cashirka aan duubayo oo taariikhda ah. Waxaad isla taabanaysaa control iyo 2 dhibcood, kadibna wuxuu kuu soo saarayaa marka taariikhda. Tab ayaan leeyahay. Isla saacadii haddaad rabto oo qofka waxaasi xogtiisa xareynayso, control shift 2 dhibcood wuxuu kuu soo saarayaa marka saacadii aad markaas aad joogtay. Tab ayaad leedahay.
ardayga buugga uu marayo waa maxay marka wuxuu marayaa leeyahay book 1 bisha uu bixinayo waa maxay bisha February taab ayaan leeyahay lacagta laga qaadayna waa lacag $20 ah kadib waxaan leeyahay enter markaa dhaa waxaad aragtaa halkaan hal mar inuu soo wadi keliya marka waxaan u baahanahay marka godkaani inaan ka dhigo money lacag waxaan ku dhufanayaa home tabka kadibna meeshaas ayaa jeega click ku siinaysaa waxaad aragtaa inuu lacag ku soo saaray haddana waxaan ku laabanaa marka formka oo waxaan gelinayaa marka dad kaleeto kadib markaas sidan ay kugu soo saaraya adigana waxaad ku dhufanaysaa new ayaad ku dhufanaysaa haddii aad rabto waxaad raadiso find previous ayaad leedahay qofka hore kuu soo saaraya find next qof kale markaan ku daro ayaan arkaynaa number 2 tab ayaan leeyahay waxaan sameeyay hadda form ayaan samaystay ee lacagta ay ugu qoran tahay ee lacagta laga rabo marka sidaas hadda maxaa u samaystay marka form adigoo isticmaalaya marka hab yar oo fudud oo xogtaada ku kaydsan karayso